Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Subax wanaagsan, galab wanaagsan, maalin wanaagsan, wax kasta ay ku tahay wanaagsan. Kusoo dhawo channelka Surbiyaan. Khiyaarteeda sharafta leh maanta waxaa subax waaye aroor waaye insha Allah waxaan idinla qaybsanayaa canjeelo yar oo nafaqaysan qaabka ugu fudud ee aan u samaysan karo. Canjeelo aad iyo aad u fudud waaye. Waa canjeelada caadiga ee la wada yaqaano laakiin canjeeladan waxaa waa canjeelo nafaqaysan waaye, nafaqo ayaa ku jirta canjeelada maasha Allah. Halkaas arkaysa waxaan ku darsaday hal koob oo boorashka caadiga ah mataqaanaa ayaan soo shiiday kadibna halkaas ayaan kusoo shubtay koob camal waaye. Waxaan kusoo darsanayaa ilaa 3 koob oo daqiiqda caadiga ah canjeelada loogu talagalay ama burka insha Allah. kadib waxaan kusoo darsaday hal qaado weyn oo sonkor waa sokorta broonka isticmaalaya. Sokor alaal sokorta markaas aad haysatid ayaad isticmaali doontaa insha Allah. Canjeeladan saa hore idinku sheegay waxaa la dhahaa canjeelo nafaqaysan. Magaceedu waxaa waaye canjeelo nafaqaysan. yaa khiyaarta maasha Allah tabaarakallah. Canjeeladii waxaan kusoo darsaday qaadada yariista ah oo leevitay ama khamiir ah iyo cusbo ama milix insha Allah aan kusoo darsaday. Intii aad markaa rabtid ayaad adigu familiga uu ka kooban yahay ayaad qasanaysaa. Marka waa kan canjeelada nafaqaysneed intii qalalnayd ingredient wixii qalalna baa isku qasay. Kadib waxaan kusoo darsanayaa 2 xabo oo ukun ah maasha Allah. Saa hore idinku sheegayba canjeeladan waa canjeelo nafaqaysan aad iyo aad mataqaana ilmaha ugu fiican runtii maasha Allah tabaarakallah. Waxaan kusoo darsaday hal koob oo caano ah, caano markaa aad isticmaashid iyo hal koob iyo bar biyo yar oo qandac ah. kadib maxaa samaynayaa kadibna waan qasayaa. Intaas ayay ka kooban tahay maasha Allah tabaarakallah waaye khiyaarey. canjeeladan qaabkan loo qasayo insha Allah waxaan rajayn doonaa inaad ka faa'iidaan soona tijaabisaan saana isugu dardartaan. waa canjeelo aan caadi ahayn. waa qasayaa mashiinka haddaadan haysanin dhib ma lahan, gacantaada ayaa ku qasan kartaa. haddii aad haysatidna waa ku qasanee, haddii kale sharaafka lagu shiido balaandarka xitaa waa ku shiidi kartaa. kulligood intaa isku wada dardartid sidii markaas aad wuxuu haysatid ayaad u qasanaysaa. marka khiyaarteeda sharafta leh waxaan rajaynaa canjeeladan maasha Allahda ah inaad ka faa'iidi doontiin, ilmihiinana aa uga faa'iideynaysiin iyo familigiina. canjeeladan waxaa waaye ilmaha lagu koriyaa, ilmaha way korisaa sababtoo ah waxaa ujeedeen maxaa ku jiray ukunaa ku jirtay, boorashaa ku jiray. marka labaduba waxaa waaye waa maasha Allah waaye. ukuntii borotiinkii leedahay, fiberkii leedahay maasha Allah tabaarakallah. waa canjeelo isku dheelitiran. hadda waa diyaar. waa qasab yaraan dhigay kadibna waan dubayaa. marka muhiimada ma lahan dubista qaabka u dubaaya inaa aragtiin iyo inaa ay wada soo dubaaya. qof kastaba waxaan u maleynayaa oo Soomaaliyeed inuu canjeelo si loo dubo uu garanayo, laakiin muhiimada waxay ahayd waxyaabaha maaragtay recipe-ga ama ingredient-ka ay isku dardaray inaa aragteen. marka waa soo dubayaa insha Allah. dubisteeda saa inii sheegay micno weyn kuma fadhiso, laakiin micnaheedu waxay ahayd ama ayni ka faa'iideynahay waxyaabaha aan isku dardaray insha Allah in adigana ka faa'iideysatid. marka waa kaasa canjeeladii saana wali ku wadaa waan dubayaa insha Allah. wax laala wixii markaas aad rabtid ayaad ilmaha ugu talagashay ayaad mataqaanaa si ilmaha u jecel yihiin ayaa ku siinaysaa. hadda waxaan sameynayaa aniga qaaraa waxay rabaan malab inay ku cunaan maasha Allah tabaarakallah. ilaa intii aan haysana si anaka noo siyaadi. waxa aan mariyay waa malab caadi ah, malab yaraasaa ugu marinay waa u duubee. waxaan ku dhahay maasha Allah tabaarakallah halkaa xab cunugaas siisid alxamdulillaah waa kuu dhamaysta ku filan maasha Allah tabaarakallah. marka waa kaasa canjeelada nafaqaysan. canjeelo nafaqaysan waaye, canjeelo borotiin la waaye, canjeelo aad iyo aad u fudud waaye, canjeelo aad waxtar fiican u leh waaye. marka qaar ilmaha yaryar uga faa'iideeya canjeelada marka wax lagu dardaro iyo markay daqiiq kaliya tahay isku mid ma ahan, ma fiicna. waa kaasa malabkaasa u mariyay saana ku siinaa ilmaha hadda siisid alxamdulillaah. quraacdiisi fuul waaye, borotiin iyo wax kastana wuu helay, quraac fiicanna wuu ku cunay. aad iyo aad u mahadsantiin walaalaha igu soo biiray dhammaantiin. waxaan idin leeyahay gacmo furan kusoo dhawaada. walaalaha cusub ee igu soo biiri doona hadda doonana waxaan leeyahay please naga ilaawin subscribe-ka, like, share, commentiga. aad iyo aad u mahadsantiin. asalaamu calaykum.